بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. صدق الله العظيم. ولا ليال وحانو كهدلينا مانتا أنغو soo qaadanayna qaybo kamida duruus oo muhiima mawaacidii maaragtay goosgooska aheedoo qaybaha aheeday kala duwaneeday. maanta darsiga aynu ku soo qaadanayno waxa uu yahay cinwaankiisu aljazaa'u min jinsi alcamal, abaalmarinta ilaahay subxaanahu wa tacaala addoon uu abaal mariyo waxaa weeye camalka uu samaynaayo jinsigiisa weeye. bimacnaa waxaa laga wadaa waxaad samayso wax maaragtay jinsigoodii ah ama maaragtay u eg oo metelaya ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu abaal marinayaa. haddii qofku marka wax khayra uu sameeyo, ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii khayrka ahay jinsigoodii ayuu ku abaal marinayaa. sida darsigeena aynu ku qaadanayno, hadduu qofku wax shara sameeyane wixii sharahay uu sameeyey wax jinsigooda ah ayaa lagu abaal marinayaa, ha noqoto adduunyada amba aakhiradaba ha noqoto. adduunyada ilaahay subxaanahu wa tacaala camalka wanaagsan waxyaabo badanoo sabab ugu noqdaa jira oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyo, sida qofka maaragtay khayrka iyo ka shaqeeya wanaagga. ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyada ayuu wax ku siinaa, aakhirana waa ku siinayaa. sidaba haddii qofku shar uu sameeyo sida caasi waalideenimadoo kale iyo dulmu cala alcibaad, addoomanka ilaahay la dulmiyo, labadaasba waxa weeye cuquubadooda sida xadiis saxiixa soo aroortay ilaahay aakhire lama sugaayo. marka hadda qiso dhacday oo cajiiba ayaan maaragtay soo qaadanaynaa oo adiladeedana iska leh. waxaa la sheegay ana rajulan ismuhu almubaarak kaana cabdan raqiiqan lirajulin qaniyin ismuhu nuux ibnu maryam fadalaba minhu sayiduhu an yadhaba liyaxrisa albasaatiina alatii yamlikuhaa fadahaba. qisadaasu waxay ahayd qiso yaab leh oo taariikhdii maaragtay ka dambaysay casrigii saxaabada, gaar ahaan taabiciinta waqtigeedii ayay ahaaday sida hadda maaragtay la xasuusto. waxaa jirtay nin la dhihi jiray mubaarak ayaa jiray. ninkaas mubaarak la yidhaahdo wuxuu addoon u ahay nin qaniya ama nin xoolale oo maalqabiina oo la dhihi jiray magaciisa nuux ibnu maryam la dhihi jiray. marka ninkii la dhihi jiray nuux ibnu maryam wuxuu ka dalbay addoonkiisii inuu baxo oo beero uu isagu leeyahay inuu beerahaas uu ilaaliyo oo waardiye uu ka noqdo oo uu maaragtay beerahaas waraabiyo oo adigu beeraha waxay u baahan yihiin oo u sameeyo. sidaas marka uu ka dalbay waa tegey ninka la yidhaahdo mubaarak waa tegey. markii uu beerihii tegey bilo ka bacdi ayaa ninkii addoonkaas iska lahaayoo la dhihi jira nuux ibnu maryam beerihii buu aaday si waxa weeye uu u soo indheeyo beeraha waxa ay ku sugan yihiin iyo axwaashooda uu soo ogaado. waxa uu kaxaystay majmuucatun min asxaabihi, rag badan oo asxaabtiisa ayuu dhahay nakeena waxaanu aadaynaa beerihii aan lahay ayaan aadaynaa, meeshaas ayaan ku soo tamashaynaa, meeshaasaan ku soo dalxiisaynaa, nakeena ayuu dhahay. sida dadka xoolaha qabaa markay beero iyo ay leeyihiin meelo tamasha dadka waa ay geeyaan, ambay geel xoola ha noqoto, geela iyo looda iyo ariga xataa hadday leeyihiin dadka way geeyaan, gaar ahaan dadka asxaabtooda ah. marka raggii waa ay raaceen, beerihii baa la tegey. nuux markaa ninkii mubaarak la dhihi jiray ayuu wuxuu ku dhahay i'tinii birumaanin xulwin wa cinabin xulwin, waxaad ii keentaa how dhahay aniga raggaygan oo maaragtay asxaabtayda rumaan
geedka rumaanka la yidhaah oo macaan ah iyo cinab oo macaan ah beerta nooga soo gooy ayuu dhahay meeshaan ayaanu ku cunaynaa markaas mubaarak waa baxay beertii buu galay markaasuu wuxuu u soo gooyey dhowr rumaan iyo dhowr cinabo u keenay markaasuu hortooda soo dhigay markii hortooda soo dhigay rumaankii wuxuu noqday mid dhanaan ah oo qaraar u dhow cinabkiina sidoo kale ayuu noqday kolkaasuu wuxuu dhahay ninkii nuux ibnu maryam la dhihi jiray yaa mubaarak alaa tacrifu alxulwa min alxaamidow dhahay warriyow midka macaankaa kama taqaanid miyaa midka dhanaanka ah waxa aad noo keenta waa maxaayuu yidhi waa maxay waxaad noo keenta uu yidhi markaasuu wuxuu dhahay mubaarak lam ta'dan lii yaa sayidii an aakula minhu xataa acrifa alxulwa min alxaamidow dhah wuxuu yidhi iima idminow dhahay sayidkaygiyow inaan cuno si aan u kala aqoonsado midka macaanka iyo midka dhanaankaa adiga markaad beertaan ii soo dirtay beerta maaragtay cun badarkeeda ima aadan dhihinow dhah sidaas daraaddeed ayaana waxba kala aqooninow dhah marka ninkii nuux ahay waa yaabay markaasuu wuxuu dhahay amaa akalta shay-an wa anta hunaa mundu shuhuurin wax kama cunin miyaa adigoo muddo dhowr bilooda halkan joogay beerta waxaad ka cunta ma jirta miyaa wuuri markaas mubaarak waxau dhahay laa wallaahi ou dhahay ma aduqtu shay-an ou dhahay ilaah baan ku dhaartaye wax aan ka dheleensha ma jirto u dhahay beerta ilaan beerta aniga waardiyeyaad idhahday mooyaane cun ima dhihin wa wallaahi maa raaqabtu kow dhahay ilaahaan ku dhaartaye adigana kuma dhowraynow dhahay oo isma dhehaynin ninkaan sayidkaaga waxaa weeye iska ilaali ma aanan isdhehaynin walaakinii raaqabtu rabbiyow dhahay rabbigayga ayaan ilaalinayay oo wax xaaraama oon lay idmin inaan cuno ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan maaragtay muraaqabadiisa amba ilaalinta alle ayaan fiirinayey taasaana ku kaaftoomay marka mubaarak sayidkiisii ninka ahay nuux ibnu maryam waa la yaabay ninkan dhowrsanaantiisou la yaabay sow u dhowrsan yahay u la yaabay iyo ninkan sow warac u yahow xalaal miirati u yahow la yaabay weliba waxuu marka hore u maleeyhayey oo u sheegaayey oo beertaan aniga waxba kama dhedhemin anigu mana kala garanaayow dhahay midka xaamilka iyo midka xulwiga waatou dhahayee moogtahay lam ta'dan lii yaa sayidii an aakula minhu xataa acrifa alxulwa min alxaamil markuu sidaas dhahayey nuux wuxuu isdhahayey ninkaanu waa kugu cayaarayaa waa ku dhagrayaa dhagarow wataa sidaasuu isdhahayey ilaan waxaa weeye bani aadamka sida badan arrimahaasoo kaleentood markii lagu arko waxaa loo maleeyaa inuu ku been sheegaayo calaashaan waracnimadaas cid kasta ka suurtaabi mayso markaas dadkii jiiraanka ahay oo beerta deegaanka joogay oo jiiraanka lahay diriska la ahay ayuu nuux wuxuu weydiiyey ninkan xaalkiisa meeshaasuu soo weydiiyey markaasay waxay yidhaahdeen maa ra'aynaahu ya'kulu shay-an abaddan weligeen annagu ninkan asagoo waxba cunaayo ma arag laakiin dadku waxay isdhihi karaan ninkan muxuu ku noolaay hadda beerta ayuu joogay waxaa dhacaysa markaas in dad kaleoo beera meelaha kule ay jiraan dadkaasuu wax weydiisanayey ama simaar kale oo dhulka baadiyaha isaga taalla inuu cunaayey oo saasoo u noolaay ayaa dhici karta marka dadki waxay yidhaahdeen jiiraanka ahay weligiis ninkan asagoo wax cunaaya annagu ma arag markaas ayuu adkaysay ou ogaaday ninkaanu inuu nin runlowba uu yahay nin waraca inuu yahay oo xalaal miiratiya nin dhowrsan inuu yahay ayuu ogaaday markaasuu wuxuu dhahay yaa mubaarak uriidu an astashiiraka fii amrin cadiimin wau dhahay markaasi nuux mubaaragow waxaan doonayaa inaan shawr kaa weydiiyoon kaala tashado
arrin aad iyo aad u weyn inaan kaala tashado macnaha cinwaankii baa soo socda oo ahay aljazaa'u min jinsi alcamal jasuhu waxaa weeye camalka jinsigiisa weeye adiga haddaad ilaahay subxaanahu wa tacaala qof rabbi ka baqa oo mukhlisa oo xalaal miiratiya oo dariiqa ilaahay ku socda haddaad noqoto ilaahay cid kasta ayuu kaa fadlilayaa derajo kastuu ku gaarsiinayaa ilaahay maqaamulculaa ayaa ku gaarsiinayaa laakiin haddaad noqoto qof khaa'ina oo maaragtay dhagar badan oo laalaab badan oo nifaaq iyo ku socda ilaahay waa ku dulaynayaa markaasuu wuxuu dhahay mubaarak waxau dhahay ma huwa yaa sayidiyow dhahay arrintaad igala showraysa maxay tahay maxaa yeele ninkii nuux waa yaabay ninkan xaaladdiisuu ka yaabay hadda qofku hadduu ilaahay ka baqo subxaanahu wa tacaalaane sidaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sharaftiisa iyo maqaamkiisao kor ugu qaadayaa cid kastaa ka ibaysanaysa kolkaasuu wuxuu dhahay inna lii ibnatan waaxidatan waxau dhahay waxaan leeyahay hal gabarahaan qabaa aniga hal gabara ayaan qabaa wa taqadama lahaa fulaanun wa fulaanun wa fulaanun min alasriyaa'i waxaana gabadhan iga soo doontow dhahay oo xoolo fara badan ka keenay nimanka hebel iyo hebel iyo hebel la yidhaah oo maalqabiinkaa ayaa gabadha iga soo doonow dhahay maxaa yeele sida qaalibkaa ninka maalqabkaa gabadhiisa waxaa soo doonta dad asaga lamid ahoo sida loo badan yahay maxaa yeele dadka masaakiinta ee fuqaradu gabadhaas kuma dhiiro karaan oo waxay isleeyihiin war dadkaanu maxay idinku falayan waa sida dhaqanka basharku sida uu yahay waaye fa yaa taraa liman usawijuhaa waxau dhahay marka yaad ra'yiyeynaysaa ood ra'yiga siihaysaa ragga waa taqaanaahe ninka aan gabadhayda ku mahrinaayo oo aan ku nikaaxinaayo markaasou mubaarak waxau dhahay yaa sayidii ina alyahuuda yusawijuuna lilmaal waxau dhahay nimanka yahuudda la yidhaahdo waxay wax ku guuriyaan maalkay wax ku guuriyaan oo haddii gabar laga soo doono waxay fiiriyaan ninkan maalka uu leeyahay xagga maalka ayay fiirshaan wanasaara yusawijuuna liljamaal nimanka nasaarada la yidhaaho kirishtaankaane oo masiixiyiintaane waxay wax ugu guuriyaan xagga quruxda oo waxay yidhahdeen ninkaan uma quruxsan yahay quruxday ka fiirshaan walcarabu lilxasabi walnasabi ou dhahay carab ayaduna waxay wax ugu guurisaa xagga maaragtay sharafta iyo nasabka qofkan uu leeyahay qofkan gadaal dambo abtirsiimadiisa dad maaragtay sharaf leh oo magac leh oo maaragtay nasabkiisu uu fiican yahay dhankaasay carabuna ka fiirisaa hau dhahay markay gabar ay wax siinayaan xagga xasabka iyo nasabkay fiiriyaan xasabka waxaa la yidhaahdaa aabbaa'da qofka uu ka soo jeedo waxa ay ahaayeen dad lagu faana hadday yihiin oo dad geesiyaala dad ayagoo hadda waa jaahiliyadii diinba ma lahayne ma og tahay dad saasay fiiri jireen dad uu magac lahay fiiri jireen inay yihiin nin qofkaanu qofka ku abtirsanaayo waalmuslimuuna yusawijuuna litaqwa hau yidhi waa ninkii mubaarak ahay addoonka waa ma og tahay dadka muslimiintaana waxay wax kula nikaaxshaan u yidhi gabdhahooda ilaahay cabsidiisa taqwadiisa qofka taqiga ah taqwadaasay fiirshaan waa markii hadda qofku muslimkaa dadka islaamka ahu markay islaam saxa ay yihiin oo islaamnimada ku dhaqmaayaan ayay waxay fiiriyaan qofkan taqinimadiisa yow u dhasha iyo qabiilkow yahay iyo yow ka soo jeedaa iyo maal ma leeyahay dadka muslimiinta ma fiirshaane qofkan kuu yimida see yahay maxaa yeele waxay ku camal falayaan xadiiska nabiga calayhi salatu wasalaam oo ahay idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu wailaa takun fitnatun fi lardi wa fasaadun nabigeena calayhi salatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi hadduu idiin yimaado qof oo gabar idinka soo doono waxa weeye ku nikaaxshow dhahay hadduu yahay qofaa diintiisa iyo akhlaaqdiisa raalli ka tihiin nabigu calayhi salatu wasalaam maal iyo qabiil iyo midna ma sheegin moogta idaa jaa'akum man tardawna diinahu diinow sheegay diin la-aanu faa'iida ma lah akhlaaq laga maarmaan waaye maxaa yeele haweentu waa dabeecad xuntaayo ilaahay feer qaloocanuu ka abuuray ninka lagu nikaaxinaayo waa inuu diin iyo akhlaaq ou kulansado si waxaa weeye ou noqdo qof gabadhaas dhaqi kara oo u sabri kara ou noqdo
فمن أي الأصناف أنت وري سويج ابنتك وداه لسنف الذي أنت منه يوري وري مارتي أصناف تاسن كوسو شيغي gabadhaada midkii aad markaas adigu rabto ku nikaaxiyowdha labadaas qolooyinkaas qolada aad ka tahay ayaad gabadhaada sii haysaa hawdhay anigu intaasaan tala kuu soo jeedinayaa ummadda adduunka ku noolne carab iyo maaragtay cajam saasay maaragtay wuxuuni hadday yahuud yihiin hadday nasaaro yihiin hadday carab yihiin muslimiinta saasay kale yihiin markaasoo ninkii nuux ahay wuxuu dhahay wallaahi laa shaya afdala min ataqwa hawdha ilaah baan ku dhaartay wax ka fadli badan taqwada ma jirto dhah waana runtiiso ilaahay subxaanahu wa tacaala suuratul xujuraat waa tawdhahay inna akramakum cinda allaahi atqaakum ilaahay agtiisa waxaa idinkuu karaamo badan qofka idinkuu taqwada badanne meeshaasuu fiirinayaa markaasuu dhahay wax ka fadli badan oo ka khayr badan ilaahay taqwadiisa ma jirto wa wallaahi maa wajadtu insaanan atqaa lilaahi minka faqad actaqtuka liwajhi illaahi wasawajtuka ibnatii yuri bal fiir hadalkaas ilaah baan ku dhaartay ayuu dhahay ma helinow dhahay insaan ilaahay xaggiisa kaa taqwo badan maaragtay mubaaragow waa ku xureeyey ilaahay daraaddiisaan kuu xureeyey gabadhaydana adaan kugu nikaaxshow dhahay marka bal fiiri ninkaas fiiri waxaa la rabaa diinta in lagu camal falaa loo baahan yahay ee inaad maaragtay diinno sheeganayso dhaqanaad iska haysato ood leedaha war heer hebel waa saas weeye war kuwaas annaga nama geeyaan war waxa soomaalidan khuraafaadka ay ku dhaqantoo kale weeye waxaas waa diin la'aan weeye ninmaa nin addoonkiisi ahay isla markiina xureeyey markuu taqwada ilaahay daacada oo ku arkay ayuu gabadhiisi ku nikaaxshay nin maalqabeena weeye markaas oo carab aho oo maaragtay asaas gabadhii ku nikaaxshay marka wa subxaana allah fiiri marka qisadatan wax yaab la weeye ninka la yidhaha mubaarak wuxuu dhahay waxay leeyihiin culummadu cafal mubaaraku can rumaanatin min albasaatiin ninka la yidhaahdo mubaarak wuxuu iska dhowray geed rumaana oo beeraha ku yiilay ayuu iska ilaashay inuusan ku qaadanin si markaasi waxa weeye aan raalli looga ahayn fasaaqa allaahu ilayhi lbustaana wa saaxibata albustaani ilaahay markaas wuxuu usoo kaxeeyey beerti iyo gabadhi ayaa ilaahay u soo kaxeeyo beerti iska lehed ilaa gabadha aabbaha masel booskiisa ay joogtaa marka maxay noqotay waljazaau min jinsi alcamal jasaha waxaa weeye min camalka jinsigiisa waaye bal ninkaas fiiri maqaamkaas muxuu ku gaaray ilaahay taqwadiisau ku gaaray dhowrsanaantaasuu ku gaaray marka waman taraka shay-an waxay culummadu yidhahdeen waman taraka shay-an lilaahi cawadahu llaahu khayra minhu qofka shay oo xun ka taga ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii wax ka khayr badan u siina shaygan macaasida ah shaygan tuugada ah shaygan maarata isbaarada ah shaygan xun oo khiyaanada ah ayaa dar ilaahay adigu ga tagtay mar ilaahay wixii ilaahay bedelkooda ku siiha marka natiijadii waxay noqotay in gabadhi ay dhasho mubaarak ay u dhasho walad wiil ay u dhashay nin maaragtay maa shaa allahu adduunkaanan cilmigiisu camimay sharaftiisu ay gaartay qaabkaasay ku timiday oo nikaaxaas oo ku yimiday isagoo maaragtay ninkaasu mubaaraga oo addoonkaa saas ku sifoobay yay dhasha marka yaa sheegi kara hadda kolley maaragtay waxaa laga yaabaa in maskaxdiina waxyaaba badan ay ku soo dhacaan yaa waaye ninkaas ninka ku dhashay yaa waaye shaykhulislaam cabdullaahi ibnu mubaarak waad maqasheen oon ayaan dhaweyda darsiku soo qaadanaynay insaanka maraatibta uu yahay iyo sida maaragtay uu kala derajo badan yahay iyo waxuu ku noolaa kara insaanka dhinkii hadalkaas la weydiiyey ee ku jawaabay caalimkii weynaay oo caarifka ahay oo cabdullaahi ibnu mubaarak ayaa maaragtay ku dhashay sidaas mubaaragaasu aabihiis waaye asna saasoo ay fiiri taas waxay ku tusaysaa marka waxay yidhaahdaan culummadu idaa daabal aslu daabal faracu yaa la yidhaah waana xadiisaa laga heli karaa xadiis ma ahan taasu laakiin waa loo deliisha karaa haddii asalku ou fiicnaado ayaa faracu fiicnaada asalka maxaa laga fiiraa marka asalka waxaa laga fiirinayaa ilaahay taqwadiisa iyo daacadiisa qofku qof wanaagsan hadduu yahay ayuu wax fiican oo soo saaraya wa fiir hadda ninkaas oo addoonka iska ahay
أدون بني آدم أهي ساس سميي إلهي سبحانه وتعالى إلهي وأبال قدي هير كاس كاري محاي نتيجة دي نغطي عالمك وقت غاس دونك أقو علمك بدناي عبد الله بن مبارك سمين كيسة نين علم كودن مجوغين نين مال هذا نين مال كودن مجوغين مال قبيلة وهاي نين جيسينما كودن جهاد كصفك هو جيري جراسو اسقاري جري wax kasta oo khayr ah oo biriya oo wanaag oo dadka sifaadka rijaasha ay ku fiican yihiin ninka adduunka ugu haysto ahay marka sida uu ku yimiday Shaykhul Islaam Abdullah ibn Mubarak waa sifadaas marka arintaas marka waa inaan fikir weyn iyo aqoon iyo faham inaanu ka qaadano way qof walba waa inuu ku dadaalo waxa uu ku sugan yahay waa inuu ku dadaalo haddaad maaragtay awlaadaada aad siiso xaaraan iyo xoolo booliya iyo isbaaro iyo canshuur iyo balaayo iyo khaa'inimo aad ku samayso oo waxaad ku dhasho maxaa ka soo baxaya dad ayaguna birisidii oo kala haddii ilaahay haddaad macaasi aad ku dhasho waxa weeye gabadhi hotel na lagu arooso laga tumaayo muusika iyo balaayin niman iyo naaga aan maaragtay kale ajnabi ah la isugu keenay meeshaas ficil lagu sameeyo waxa weeye ilmihii ayaguna sidoo kale noqonayo kuwa maaragtay muusikiistayaal ay noqonayo khayr beelayaal oo adduunka dhan kharibay noqonayaan waxa maanta caalamka kharibaya oo khayrka lahayn waa waxa noocaas ku dhashay marka waxa la rabaa awlaada in lagu dadaalo oo waxa weeye loo xalaal miira loo baahan yahay marka arintaas waxa isu dardaarmayna ilaahay taqwadiisa subhanahu wa ta'ala inna akramakum indallahi atqaakum numberkaas ay taaganta arintu qof waxa weeye ilaahay agtiisa carabnimo la fadla bayna arabiina ala ajamiin illa bi taw rasuulku arab iyo maartay ajam wax fadliyo u dhaxeeya majra ila taqwada ilaahay mooyee qofkii ilaahay taqiya ayaa ilaahay agtiisa wax ka subhanahu wa ta'ala dadku waa wada adooman ilaahay marka insha Allah ta'ala darsigeenaas aljazaa'u min jinsi al'amala inta suu noogu egyahay هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته